maamulka gobolka Togdheer ayaa xilkii u kala wareejiyay isduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland u soo magacowday wasaaradda biyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale isduwihii hore wasaaradda biyaha gobolka Togdheer. munaasabadda xil wareejinta oo ka qabsoontay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Togdheer xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha Burco. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay isduwihii hore wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Togdheer Ali Maxamuud Cajab oo ka warramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay. waxaanu qodnay dhowr iyo toban ceel oo ay dowladda kulmiye qoday oo bahyaakii ku dar waxaanu kala ku darnay ceelka laga boorhol steedaad oo wakaaladdu lahayd oo isna xumaaday. waxaanu soo celinay xidhiidhkii hay'adaha iyo wasaaradda waxaasoo dhan waxa naga caawiyay hay'ado waxa naga caawiyay dowladda oo wasaaraddu waxaan isku xidhnay heer gobol heer wakaaladeed heer degmo iyo heer qaranba waxay wasaaradda isla jaan qaadaysa oo xidhiidhkeedii iyo waxqabadkeedii iyo horumarkeedii aanu soo celinay. maarayaha wakaaladda biyaha Burco iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka marxaati kacay waxqabadkii hore ee isduwihii hore wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Togdheer ka qabtay muddadii uu xilka hayay. runtii marka hore waan ducaynaya Rashiid Faarax oo isduwa cusub ilaahay xilku waa soo marka uu fududeeyo isduwihii hore Ali Maxamuud isna ilaahay waxaan uga baryaynaa maartay inuu ilaahay maartay meel ka wanaagsan meesha siiyo roogay ama marxaati baan ka ahay cali intii aan gobolka joogay runtii xaqiiqo markuu doonayo nin wax ka qabadba kala wuxuu qabtay inaan jirin way ducaynaa waan hawshii ku cusub waxaan leenahay ilaahay ku garab galo halka ay taagan tahayna inuu ka soo qaadanayaa kulli cali annagu wakaalad ahaan si fiican baan wada shaqayn jirnay xiriirkii wakaaladda iyo wasaaraddu intii cali joogay intaan anagu joognay halkii weerku ugu fiicnaa ayuu gaadhay. isduwaha cusub ee wasaaradda biyaha gobolka Togdheer loo soo magacaabay ayaa dhankiisa isaguna soo dhaweeyay xilkaasi cusub isagoona u mahadnaqay cid kastoo ka soo qayb gashay munaasabadda xil wareejinta. laakiin maanta waxa uu muujiyay in hawl badan iyo horumar badan ay wasaarad ahaan ay gaareen. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo la dardaarmay isduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland u soo magacowday wasaaradda biyaha gobolka Togdheer isagoona sii sagootiyay isduwihii hore wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Togdheer Ali Maxamuud Cajab. waxaan leenahay isduwe waa ku sii macsalaameynayna shaqada wanaagsan aad qaranka u soo qabatay ee aad gobolka u soo qabatay waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajrigeeda ha ku siiyo waana wax de credit oo gashatay maaragtay mas'uuliyadda lagu saaraa qofkana de wuxuu xilka u qabanaya inuu de ku hagaasan maaha ama uu hagaasiye inuu de dadka wax u qabto weeye waa la shukr cala waajib isduwaha hore intaasaan leenahay. isduwaha cusub marka hore waa soo dhaweynaynaa waa ugu ducaynaynaa in xilka Ilaahay uu ku asturo. Khaliil Barrawraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.